kulanti wacan oo wanaagsan daawaday halkan waa madasha wararka qodobada warkaad ku daawan doontaan anunaan idiin soo gudbin doona waxaa qayb ka noqonaya dagaal culus oo ay duqeymo barbar socdaan oo xilligani ka soconaya koonfurta gobolka mudug waxaa la soo tibinayaa dagaal culus in xilligan uu ka soconaya deegaanka shabeelow ee dhaca koonfurta gobolka mudug wararka ayaa tilmaamaya duqeymihiisa ka bilowday ilaa iyo haatan inay soconayaan khasaare la soo tibinayo guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ee ku gadaaman dagaalka xilligani ka qarxay koonfurta shabeelow ayaan idiin soo gudbin doonaa oo warkayaga aad ku daawan doontaan haddii rabbi uu karaal noqdo qodobada kale ee warkaad ku daawan doontaan inaan idiin soo gudbin doona waxaa qayb ka noqonaya wasiir xasan macalin oo sheegay in awoodda shabaab ay wiiqmatay balse markaasi xasan sheekh ka hor ay ahaayeen dowlad jirta oo awood leh xasan macalin wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu ka hadlay dagaalka adag ee xilligan lagula jiro kooxda shabaab waxa uu sheegay in kooxdu ay lumisay awood ay lahayd kadib duulaan culus oo ay haatan ku qaaday dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ku soo gudbin doonaa bayaanka iyo hadalkaas halka uu ka jeediyay hadduu rabbi u karaal noqdo qodobada kale ee warkaad ku daawan doontaan inaan idiin soo gudbin doona waxaa qayb ka noqonaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa admis oo la wareegay deegaano hor leh ciidanku howlgallo culus oo ay ka sameeyeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Bakool koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu suurta gashay in deegaano ay la wareegeen guud ahaan waxaan ku soo gudbin doonaa magacyada howlgalkii ugu dambeeyay deegaanada ciidanku ay kula wareegeen dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligani ka soconaya Bakool halkan ayaan si wada jir ah ugu daawan doonaa balse daawadii aan ku xasuusiyaa haddii aad ku cusub tahay barteena YouTube inaad subscribe saarto oo gambaleelka aad furato si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyada halkan aan kugu soo gudbino qaybta hoose ee commentiga noogu reeb oo raahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinadan ku soo gudbinayno muuqaaladeena sii sheer garay oo asxaabtaada la wadaag mahadsanid daawade ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay wararkii ugu dambeeyay iyo duqeymaha culus oo xilligan laga soo warinayo koonfurta gobolka mudug deegaanka shabeelow waxaa la tibaaxayaa in saakay aroornimadii hore dagaal culus oo halkaasi ka bilowday isla markaasna duqeymo culus ay barbar socdaan ilaa iyo haatan in la soo tibinayo waxaa jira khasaare culus oo dagaalkaasi ku aadan saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya guula hordhac ah ayay ka sheegteen dagaalkii ugu dambeeyay ee xilligan ka soconaya nawaaxiga aaga deegaanka shabeelow la yiraahdo ee dhaca koonfurta gobolka mudug wararka ka imaanaya deegaanka shabeelow ee dhaca koonfurta gobolka mudug ayaa ku soo waramaya in halkaas ka mar kale dib uu kaga qarxay dagaal culus oo ay duqeymo barbar socdaan dagaalka ayaa u dhaxeeya ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa xaq u dirirka deegaanka iyo xubno ka tirsan kooxda shabaab oo ku sugan deegaanka shabeelow ee dhaca koonfurta gobolka mudug wararka ayaa tilmaamaya in howdka deegaanka shabeelow lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan kooxda shabaab kuwaas oo ah xubnihii shalay dagaalka adag halkaasi kula galay ciidamo u badan kuwa dadka deegaanka oo ay kaabayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug wasiir xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa uu tilmaamay in dagaalkii cuslaa ee shalay halkaasi ka dhacay kooxda lagu gaarsiiyay khasaare culus saakana mar kale dib uga bilowday shabeelow dagaal kale oo qaraar deegaankan oo dhaca koonfurta gobolka mudug waa dhul kayn ah taas oo sabab u noqotay in dagaalka uu cuslaado maadaama inta badan xubnaha ka tirsan kooxda shabaab ay kabaad kaga dhiganayaan duqeymaha diyaaradeed ee markaasi lala bartilmaameedsanayo wasiir xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa sidaas oo kale tilmaamay in shabeelow ay soo galeen xubnihii ugu badnaa oo shabaab ka tirsan kuwaas oo ka soo cararay goobihii ay horey kaga sugnaayeen deegaano dhaca maamulka galmudug ilaa iyo haatan waxaa soconaya duqeymaha culus oo lagu garaacayo deegaanka lama oga khasaaraha ka dhashay duqeymihii saakay mar kale dib uga bilowday nawaaxiga aaga deegaanka shabeelow ee dhaca koonfurta gobolka mudug shabeelow shalay waxaa ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa oo waayadan ka dhaca deegaanada galmudug kaas oo ka dhalatay khasaare culus labada dhinac si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay marka laga tago sheegashada dhinac waliba dhinaca kale ee guulaha la xiriira dagaalkii shalay kooxda ayaa dhulkan ku mitidaysa maadaama uu yahay dhul howd ah isla markaasna duqeymaha ay gabaad kaga dhigan karaan
kooxda shabaab ayaa inta badan waayadii dambe waxa ay gabaad ka dhiganayeen dhulka hawdka ah oo markaas ay kaga dhumanayaan duqaymaha ay fulinayaan saaxiibada Soomaaliya ka caawiya dhanka cirka. Shabeelow haddii shabaab laga saaro waxay mar kale u muuqataa in waayihii kooxda ee markaasi maamul goboleedka Galmudug uu soo idlaanayo, si gaar ah gobolka Mudug. Halkan waa dhul hawd ah, kooxduna aad ayay ugu mitidaysaa, ayuu yiri mid ka mid ah dadka gorfeeya siyaasadda. waxa uuna tibaaxay in haddii kooxda laga saaro halkan ay ka dhigan tahay in waayiheedii koonfurta gobolka Mudug uu soo idlaaday. kooxda ayaa inta badan waxaa laga saaray deegaanadii iyo degmooyinkii dhowrka ahaa ee kaga sugnaayeen gobolka Mudug, waxaana xilligaani socota qorshihii iyo qabanqaabadii ugu dambeeyay ee la qorsheynayo oo guud ahaan looga saarayo goobaha ay xilligaani kaga harsan yihiin Mudug. haddii Mudug laga saaro mar kale howlgalka waxa uu jihaysan doonaa deegaanada ka haray Galgaduud iyo Mudug ayaa isku ah maamulka Galmudug. labadan dhinac haddii laga saaro waxay ka dhigan tahay in markaasi shabaab guud ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka Galmudug laga saaray. wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka ku soo kordha howlgalka qorsheysan ee saaka mar kale dib kaga bilowday Shabeelow, halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa daawade. markana aynu eegno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa howlgalka ADMIS waxa ay la wareegeen deegaano dhowra oo markaasi dhaca gobolka Bakool. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa ADMIS waxaa la soo warinayaa inay maanta si wada jir ah howlgallo aad uga culus ay uga sameeyeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. howlgalladan waxaa lagu beegsaday deegaano ay ku sugnaayeen xubno ka mid ah kooxda shabaab oo hoostaga degmada Waajid ee gobolkaasi, sida ay saaciyeen saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa howlgalkan qayb ka ahaa gudoomiyaha maamulka degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf, waxayna ciidamadu ku gaareen deegaano dhowr ah oo kala ah Malable iyo sidaas oo kale Baar oo hoostaga degmadaasi. saraakiil u hadasha militariga Soomaaliya dhankooda waxay shaaca ka qaadeen inay ka hortageen weeraro halkaas ay ka soo abaabuliyeen xubno ka mid ah kooxda shabaab kadib xogta ay heleen. sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay inay la wareegeen deegaanadii lagu dagaalamay, isla markaasna ay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ciidan oo culus ay xilligaani ka wadaan. xaaladda haatan waa mid kacsan, waxa ayna dadka deegaanka sheegeen in gurmad iyo sidaas oo kale ciidamo hor leh ay ku sii qulqulayaan aagga degmada Waajid. maalmihii u dambeeyay waxaa gobolka Bakool ka dhacay dagaalo iyo weeraro ay geysanayaan xubno ka mid ah kooxda shabaab, kuwaas oo markaasi la bartilmaameedsanayeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya iyo kuwa howlgalka ADMIS ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in halkaasi khasaare xoog leh ay geysteen dagaalada halkaas ka dhacay kadib kolonyo ka tirsan ciidanka Itoobiya ee ku sugnaa agagaarka degmada markaasi la yiraahdo Rabdhuure ee gobolka Bakool markii weeraro jidgal ah ay ku qaadeen xubno ka tirsan kooxda shabaab. kooxda ayaa inta badan weeraro toos ah iyo kuwa dhabagal ah waxa ay la bartilmaameedsadaan ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS oo inta badan ku safra qaybo ka mid ah Bakool. daawade halkan waa madasha wararka, waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horreysay ee barteena YouTube aan ku xasuusiyay inaad subscribe saarto, gambaleelka aad furato si mar weliba aad u hesho wararka, warbixinada, xogaha iyo barnaamijyaadka halkan aan kuugu soo gudbino. qaybta hoose commentiga oo raahdaada noogu reeb ee mahadsanid daawade.